Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar kale iyo isku soo noqod wanaagsan. Waa channelkii aad uga barateen qisooyin jacayl oo taxane ah iyo mawduucyo kala duwan oo ka hadlaya qaybaha kala duwan ee nolosha. Haddii aad ku cusub tahay, ha iloobin inaad rukumatay channelkan ama aad subscribe dhahdo si aysan ku dhaafin qisooyin cajiib ah oo wax badan ka bedeli kara noloshaada. Haddaba maanta halkan waxaan idinku soo gudbinayaa mawduuc aad u xiiso badan oo ku saabsan maxaa sababa in qofku uu jacayl haleelo ama ku dhaco. Waxaynu ku faaqadaynaa sababaha qofka ku kalifi kara ama u horseedi kara in uu jacayl ku dhaco amaba jacayl u haleelo. Ka hor inta aanan u guda gelin falanqaynta sababaha dhaliya in qofku jacayl haleelo amaba ku dhaco, waxaan jeclaan lahaa inaan si guud uga hadlo ereyga jacayl. Waa maxay jacayl? Jacaylku waa dareen xooggan oo ku salaysan ka helitaan qoto dheer oo aad u qaaddo qof kale. Jacaylku waa nolol iyo naxariis kolka uu ku bilowdo waddada saxda ah, dhanka kalena waa culays iyo ciriiri kolka aad jeclaato ruux qaldan. Kolka aan leeyahay ruux qaldan, micnaheedu waxa uu yahay qof aanan munaasab kugu ahayn amaba aanan dareemi karin qiimaha jacaylka oo ay kaliya hogaaminayso damac jireed oo uusan hogaaminaynin damac qalbi iyo mid ruuxi ah intaba. Haddii aan intaas kaga gudbo sharaxaadii koobnayd ee ereyga jacayl oo aan u soo laabto mawduuceennii maanta kaasoo ahaa maxaa sababa in qofku uu haleelo jacayl amaba ku dhaco, waxaa jira dhowr sababood oo uu qofku jacayl ugu qaadi karo qof kale. Sababta ugu horreysa ayaa ah aragtida. Waxaa dhici karta in qof aad aragtay markii ugu horreysay oo aad indhaha qac ku siisay inuu si toos ah saameyn ugu yeesho qalbigaada. Jacaylku waa sida darab koronto oo kale ah oo hal mar jirkaada ku cararaya mintin ilaa cirib. Sida birlabtu ay u soo jiidato walxaha kale ee biraha ah, ayaa qalbiguna iyo aragtiduba u soo jiitaan jacaylka. Jacaylka ka bilowda aragtida koowaad wuu ka saameyn badan yahay jacaylka kale ee bilowda kadib markii labada qof ay aad isku fahmaan dhanka sheekada. Caqabadda uu leeyahay jacaylka kugu haleela aragtida koowaad ayaa ah mid adiga keliya kugu kooban oo uusan war ka haynin ruuxii aad u qaaday jacaylka. Waxaana inta badan kugu adkaanaysa sidii aad ku soo bandhigan lahayd dareenkaada jacaylka ah. Maxaa yeelay mar weliba oo aad aragto ruuxii aad aragtida uun ku jeclaatay, waxaad dareemaysaa farxad iyo cabsi isku dhafan oo kaa hor istaagi kara xitaa inaad qofkii si saani ah u salaanto, ula hadasho, iska badaa inaad bandhigato jacaylkaad u qaaday. Qodob labaad oo sababi kara inaad qof jeclaato ayaa ah naxariista iyo xushmadda uu qofkaasi kuu muujiyo xilli kasta, taasoo marka dambe saameyn weyn ku yeelan karta rabitaankaada, sababtana in aad aayar uga hesho ruuxaasi ilaa kama dambayn aad u qaato jacayl dhab ah. Sabab kale oo aad qof jacayl ugu qaadi karto ayaa ah wadajirka ama wada joogitaanka muddada qaato ee aad mar weliba meelo ku kulantaan, sida goob waxbarasho ama goob shaqo, taasoo sababi karta in wiilkii iyo gabadhii ay mar weliba iska soo horbaxaan, sheekaystaan ama wada kaftamaan, taasoo kama dambaynna sababta in labada qof midkood uu haleelo jacayl dhaba. Qof weliba oo gaaray wakhtiga hasaawaha, qaangaarka ama hanaqaadka ah, mar unbuu soo weeraraa jacaylka qaabkuu doonaba ha ku soo ataage. Balse su-aasha isweydiinta leh waxay tahay, qof weliba oo uu jacayl haleelo ma wuxuu dhex galaa nolol farxad leh iyo jawi aad u macaan, mise xaalku wuu ka beddelan yahay sidaasi? Jawaabtu waxay tahay qof weliba oo jacayl haleela ma helo nolol farxad leh, oo waxaaba dhici karta in dadka qaarkii uu jacaylkii u horseeda murugo iyo niyad-jab uusan filanaynin, taasoo sababi karta inuu marka dambeba naco ereyga jacayl. Haddaba maxaa sababa in qofku halkuu farxad ka filayay inuu taas beddelkeeda dhex maquurto badweyn xanuun badan? Jawaabtu way iska caddahay oo waxaa dhici karta inuu qofkaasi uu jacayl u qaaday qofkii aan munaasabka ku ahayn noloshiisa ama mustaqbalkiisa, amaba waxaa dhici karta waddada loo maray gudbinta jacaylka inay ahayd mid qaldan ama lagu fududaaday, taasoo inta badan sababta in jacaylku hal dhinac ka socon waayo oo uu noqdo gaari shaagagtii mid ama laba ay ka banjareen. Waxaa kale oo dhici karta in adiga oo aan daraasad fiican ku samaynin
amaba si fiican aadan u baranin shakhsiyadda qofka aad si xawli ah ugu ballaqday albaabada qalbigaada adigoo aanan ka fiirsi dheer samaynin. mawduucan ku saabsan maxaa sababa in uu jacayl ina haleelo ama aad ruux u qaadid jacayl waa mawduuc aad u ballaaran, balse maanta halkan baan ku soo koobaynaa. waa axmed diri afrax oo idin rajaynaya nolol farxad leh meel weliba oo aad dunida ka joogtaan.